وشرف نوع إن برنامج كان أنقبنا وبرنامج مهم فلارتورك الصوماليات وحنا مش نوع عزمي أن منو فوضى إن هو لها أنقبنا حير كبدا أكتر مركا وحنا إذا شيء يا حير فلارتورك qaabka uu u socdo iyo sida howlihiisa ay u badan tahay marka idinka sheekeeyo howlo badan ayaa hortaalo howlahaas hortaalo waxa waaye in badan uu soo shaqeeyay sida maxogayaha guud uu sheegay maxay dhaansaga haddana waxaana hortaalo howlo adag maadaama hadda meesha lagu fadhiyo dadkii la rabo in wax la tuso oo dadka wax tusi lahaa meel walba oo maxay dhaansaga wadanka uu ka jiro waa laga ciyaaraa taas waxay keenaysaa in la dhaqaajiyo dadka dhaqaajin lahaa dadka haddana hor fadhiyo waay waxaa kaloo idin sheegayaa hadda waxaan ka nimid oo martiqaad oon ka helnay xiriirka falartuurka adduunka maana world archery oo nagu martiqaadeen kongareskii 55 oo lagu qabanayo Jarmanka marka Jarmanka waxaan kala soo kulannay soo dhaweyn fiican waliba ballanqaad fiican ayaan soo helnay wadamada qaarkood aan soo marnay sida Belgium iyo sida Sweden waxay noo ballanqaadeen xiriirkan inay garab istaagi doonaan qaabka ay ku garab istaagaan aan ka sheekaysanay waxay tahay dhinaca tababarida dhinaca qalabeenta iyo dhinaca maxay dhaansaga macallimiinta waxyaabahaas dhan waxa waaye waxa loo baahan yahay in laga dhaqaajiyo si firfircoon leh oo meel walba la gaarsiiyo marka arin kasta la qabanayo waxa waaye culays badan ay leedahay laakiin in lagu dhawr adeego qaabkii loo horumarin lahaa marka qaabkaasna waxa horumarin kara marka dadka oo la rabo in la geliyo aqoonta markii lagu geliyo waxa la rabaa in adigana lagaaga faa'iideysto marka magaalada Muqdisho gudaheeda meel badan laga ciyaaraa sidoo kale Baydhabo Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe gobolada dhan aad lagu dheelaa marka taas waxay keenaysaa marka in la casriyeeyo falar Turkiya hore waa la ogeysay tahay laakiin hadda qalab oo casri ah ayaa jiro oo hortiina hada yaalo waa la idin tusi doonaa insha Allah qalabkaas oo la rabo in la gaarsiiyo ilaa meel walba laga ciyaaro taas waxay keenaysaa in la helo macallimiin tayo leh macallimiin fiican aqoon u leh ciyaartooy fiican si oo adduunyada loogu qayb qaato sababtoo waxa weeye wadamadan Afrika waxaan ku nahay hadda 33 wadan Afrika carabta waxaan ku nahay jaamacatul arab 21 wadan waay inta ku jirto world archery shirka waxa ka soo qayb galay 215 wadan laakiin 167 wadan ayaa maxay dhaansaga oo adduunyada maxay dhaansaga ka diiwaan gashan taas waxay keenaysaa marka in oo adduunyada aad loogu maxay dhaansaga loo intersaareeyo ama loo tixgeliyo ciyaarahan marka taas waxaan rabnaa marka in oo ka wasaarad ahaan ka maxay dhaansaga inta oo qayb ka geysanayso dadka hadda ballan qaadka noo sameeyeen waxaan aad u rajaynaynaa insha Allah in garab weyn laga siiyo Olombikada Soomaaliyeed sidoo kale marka waxaan rajaynaynaa insha Allah dhinac kasta in anaga talaabta aan qaadayno lana garab istaago warqadyaalkiina soo qorta wax walba waxaad noogu baahantahay noo keensada marka taas waxay keenaysaa in dad walba la xiriiro haddii la xiriirana wax badan ay imaanaya insha Allah waxaan aad u rajaynayaa maadaama waqtiga cariir uu yahay oo maanta goorar la fureed maalin kale isugu imaan doona xiritaanka laakiin hadda waxa waaye maadaama waqtiga uu yar yahay saadarteed waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha isboortiga ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo noo furi doono maxayna seminaarka